cadceed group dharka ay dalka keenaan waxa raga dhameystiran quruxna loo daa subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada warka subax ee keenan qodobada aad saaka maqli doontaan waxa ugu waaweyn al-shabaab oo gawaari qaraxyo ah iyo weerar toos ah ku qaaday saaka saldhig military oo ku yaala Jubbada Hoose hogaamiyihii amniyaadka shabaab ee Muqdisho oo la sheegay in gacanta lagu dhigay xogta ninkii isku qarxiyay Nairobi habeenay hubka gudaha Kenya u gelisay oo la soo bandhigay waxootiga Soomaaliyeed ee Kenya oo culays la kulmaya kadib weerarkii Nairobi iyo la'aan laga soo sheegayo xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan booliska Suudaan oo rasaas ku furay dad baroodiiq isu soo baxay iyo madaxweyne Trump oo beeniyay inuu abaabulay been Congress-ka loo sheegay Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad markale subax wanaagsan waa sabti ay taariikhdu ku aasaysan tahay 19 bisha koowaad ee January 2019 warka oo dhan waxa la diyaaray Maxamed Axmed Tuuriyare waa mahadsan tahay Cabdiqani Cabdullaahi subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkii oo intaad maqasheen ka faahfaahsan dagaalamayaal hubeysan oo ka tirsan al-shabaab oo wata gawaari qaraxyo lagu soo raray ayaa lagu soo waramayaa inay weerar toos ah ku qaadeen saaka saldhig military oo ciidanka dawladda ay ku leeyihiin gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan Baarsangooni wariyaha idaacadda kulmiye ee magaalada Kismaayo Maxamed Qaasim Cali Waxar ayaa Cabdiqani uga waramay sida ay saaka wax uga dhaceen Jubbada Hoose waa mahadsantahay deegaanka Baarsangooni oo qiyaastii 46 kilomitir ama 45 kilomitir dhinaca waqooyi ee kaga beegan magaalada Kismaayo halkaasi oo fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ayaa ruxnimadii hore ee saakay waxa weerar ku soo qaaday xilligii sala subaxa ciidan ka tirsan kuwa ururka al-shabaab wararka ka imaanaya deegaankaasi waxa ay sheegayaan ku dhawaad 10 baabuur oo ay ka buuxaan noocyada kala duwan ee qaraxyada inay halkaasi ay ku soo weerareen qaraxyadii koobaad kadibna halkaasi uu dagaal toos ah u dhaxeeyo ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland oo iskaashanaya iyo ciidanka weerarka soo qaaday oo halkaasi ka bilowday wararku waxa ay sheegayaan ilaa iyo hadda in ay weeraradaasi ama dagaalkaasi ilaa iyo hadda uu socdo isla markaasina aan la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi waxaa lagu soo waramayaa gaadiidkii badnaa ee qaraxyada siday halkaasi ay ku soo weerareen in qaar ka mid ah uu qarxay halka la arkayo kuwa kale oo ilaa iyo iminka taagan oo aan weli qarxin dagaalkina uu weli socdo runtii deegaanka ma jirto ila rasmi ah ama mas'uuliyiin ka tirsan kuwa dawladda federaalka ama sida ama kuwa Jubbaland oo ilaa iyo hadda ka hadlay dagaalkaasi ama ka bixiyay faahfaahin rasmi ah balse wararka ugu dhow sheegay oo la soo gaarayo ayaa sheegay in dagaalka weli uu socdo khasaaraha la xaqiijin karin saldhigga marka shabaabku ay weerarka ku qaadeen ma militariga Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada Jubbaland oo isku dhafahba ku sugan mise sida wararka qaar ba ay sheegayaan waxa uu saldhigu yahay daraawiishta Jubbaland oo kaliya deegaankaasi Baarsangooni soo dhaafnay ururka al-shabaab waxaana halkaasi si wada jira ugu sugan ah ugu jooga ciidamada Jubbaland iyo kuwa dalka Soomaaliya waxaana dhowr hore oo jeer ay ciidanka al-shabaab ay halkaasi ay soo weerareen iyadoona mar ay qabsadeen walow markii dambe dib looga kiciyay asaatee si wada jira ayay halkaasi ugu sugan yihiin ciidamada waana kuwa hal meel ka wada duulo hal meel ku wada nool sida aan ka warqabno wariyaha idaacadda kulmiye Maxamed Qaasim Cali Waxar ayuu kaasi ahaa al-shabaab war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in weerarka ay ku qaadeen Baarsangooni ay kula wareegeen saldhiggii ciidanka dawladdu ay Baarsangooni ku lahaayeen warka al-shabaab ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay inay furteen hub iyo saanad military oo ay saldhigga ciidanka dawladdu ku haysteen sidoo kale al-shabaab waxa ay sheegeen in tabanayo ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ay ku dileen weerarka ay ku qaadeen Baarsangooni wixii ku soo kordhana radio kulmiye.net ayaad ka heli kartaan faahfaahinta
hogaamiyihii amniyaadka al-shabaab ee magaalada muqdisho ayaa lagu soo waramayaa in gacanta lagu dhigay sida ay ku waramayso hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Axmed Maxamed Ibraahim ayaa faahfaahinaya. ciidamada ammaanka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku soo dhigay 18 bishan sida la sheegay in ka tirsan amniyaadka dagaalamayaasha al-shabaab. warkan oo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed in ay ku shaacisay boggeeda Twitter-ka ayaa lagu yiri howlgal qorsheysan oo si taxadar leh loo fuliyay ayaa ciidamada ammaanku 18 bishan ku soo qabteen xubin hogaamiye u ahaa kooxda amniyaadka ee ka howlgala magaalada Muqdisho. hay-adaha ammaanka dalka uu hadafkoodu yahay ilaalinta dhiigga shacabka iyo ka hortagga cadawga ummadda Soomaaliyeed ayaa bulshada ka codsaday inay kala shaqeeyaan dadaalada lagu sugayo nabadgelyada dalka iyo dadka ayaa intaa la raaciyay warka Twitter-ka nisa lagu daabacay. ciidamada ammaanka dalka ayaa sidaan oo kale sheegay kol hore inay gacanta ku soo dhigeen saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsanaa al-shabaab iyo weliba Daesh. inkastoo aanan jirin wax saxaafadda loo soo bandhigay ama magacyada shakhsiyaadka al-shabaab iyo Daesh ka tirsanaa oo lala wadaagay warbaahinta, waxaana xusid mudan in al-shabaab iyo Daesh midkoodna uusan ka hadlin shakhsiyaadka lagu sheegay in gacanta ay ku dhigeen ciidamada ammaanka Soomaaliyeed. laamaha ammaanka Kenya ayaa waxa ay sheegeen haweeney ay ku eedeeyeen in ay hubkii lagu weeraray magaalada Nairobi ka qaaday Soomaaliya gudaha Kenya ay geysay iyo war kale oo ku saabsan xogta ninkii isku qarxiyay hoteelka magaalada Nairobi. warbaahinta Kenya ayaa waxa ay shaaciyeen magaca haweeney ciidanka ammaanku ay ku eedeeyeen in ay Soomaaliya ka qaaday hubkii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen hotel Nairobi ku yaala toddobaadkii hore. saraakiil ka tirsan qaybta argagixisada la dirarka ee booliiska Kenya ayaa waxa ay ku guuldareysteen in Maryan Cabdi ay ka soo xiraan ceel doreed. koox kalena waxa loo diray magaalada Milindi walina ma cadda inay soo xireen iyo in kale sida uu ku warramay The Standard. Maryama waxa la sheegay inay ka soo jeedo deegaanka Bondini ee Mombasa, waxa ayna isku xir muhiim ah u sameysay qorsheeyayaasha iyo fuliyayaashii weerarkii sida ay ogaadeen ciidamada booliiska Kenya, waxaana lagu soo waramayaa in raggaasi ay ka tirsanayeen amniyaadka al-shabaab ayuu qoray wargeyska The Standard. dhinaca kalena waxaa markii u horeysay laamaha ammaanka ee Kenya ay ogaadeen aqoonsiga ninkii isku qarxiyay hoteelka ay al-shabaab weerareen. waxa uu ahaa 25 jir lagu magacaabi jiray Maahir Khalid Risiki, waxa uu ka soo jeedaa tuulo hoos tagta Mombasa. booliisku waxa ay sheegeen in Maahir Khalid uu al-shabaab ku biiray markii uu masjid kula kulmay Ramadan Xasiimi Kufunwa oo hadda ku sugan Soomaaliya kana barbar dagaalama al-shabaab. dalka Kenya wali waxa ka socda baaritaanka weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka Dusit Labo ee magaalada Nairobi, kaasi oo ay ku dhinteen 22 ruux, tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen. baaritaanka waxa ka qayb qaadanaya hay'ado caalami ah. jimcihii shalay ayaana waxa maxkamad la soo taagay 5 qof oo lagu eedeeyay inay weerarka xiriir la lahaayeen, waxaana maxkamaddu ay u ogolaatay dacwad-oogayaasha Kenya in 3 maalmood 5 qof xabsiga lagu sii hayo. isla wararka Kenya ayaan ku guda jirnay qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Kenya ayaa waxa soo food saaray culays uga yimid laamaha ammaanka kaas oo imaanaya kadib markii uu dhacay weerarkii al-shabaab ee Nairobi ka geysteen. Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa ka waramaya. gudoomiyaha gobolka Tana River Dado Kodana ayaa sheegay in dhammaan qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalka Kenya ay tahay in dalkooda ay dib ugu laabtaan. Kodana gudoomiyaha ismaamulka Tana River ayaa yiri Soomaaliya hadda waa ammaan, sidaas darteed waxa haboon in qaxootiga Soomaalidu ay dalkooda dib ugu laabtaan dhistaana. gudoomiyaha ayaa sidoo kale aad u cambaareeyay weerarkii galabnimadii Talaadada ee al-shabaab ku qaadeen hotel ku yaala caasimadda Nairobi, halkaas oo ay ku dhinteen 22 ruux. gudoomiyaha gobolka Tana River sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in joogitaanka qaxootiga Soomaalida ee Kenya aysan wax faa'iido ah soo kordhinin, taas beddelkeedana ay ka dhaxleen qalqal dhanka amniga ah. Kodana ayaa soo hadal qaaday joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya, isagoona sheegay in AMISOM ee Soomaaliya si wanaagsan u sugeen ammaanka waqti xaadirkana aysan jirin cabsi ay qaxootiga Soomaalida ku qabaan in dalkooda ay dib ugu laabtaan. hadalkan xanafta leh ee ka soo yeeray gudoomiyaha gobolka Tana River ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii al-shabaab ay sheegteen mas'uuliyadda weerar ay ku dhinteen in ka badan 20 ruux oo ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Nairobi, iyadoona hadalkiisa saameyn weyn uu ku yeelan karo qaxootiga Soomaalida ee ku sugan gudaha dalka Kenya, kuwaas oo ka walwal qabay saameynta uga imaan karta weerarkii ugu dambeeyay al-shabaab ku qaadeen caasimadda Nairobi.
biyo la'aan ayaa lagu soo warramayaa inay ka taagan tahay xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dadkuna waxa ay codsanayaan in ay helaan biyo ay cabaan. Cusmaan Aadan Carays ayaa beledweyne ka soo warramay. biyo la'aantani ka dhacday deegaana ka mid ah magaalada beledweyne carruurta gobolka hiiraan ayaa loo aanaynayaa hoos u dhac ballaaran ay ku yimaaday biyaha webiga shabeelle oo aad u biyareeyey taa oo sababtay in ceelasha magaalada beledweyne ay biyaha siinayay xaafadaha fofog iyaguna ay biyareeyaan halka fuusta ee biyaha ayaa waxaa lagu kala iibsanayaa gudaha magaalada beledweyne ee carruurta gobolka hiiraan $1.5 oo u dhiganta 30,000 oo shilinka Soomaaliga ah sida uu KN u sheegay mid ka mid ah dadka deegaanka ceel jaallo oo la soo xiriiray xafiiska warbaahinta kulmiye ee magaalada beledweyne oon ayaa saa'id ay caalijala deegaanka caalijala ka jiro ayadoo maaragtay soo webiga shabeellada haddaan ortobooyinka oo ruux maaday warbaahinteeda sheegaan webiga inay isticmaali karin marka oon saa'id ayaan ka cabanaynaa aan ka cabanay hadda antaan awal sida gargaarka hay'adaha seef oo kale ayaa biyo dhaamin ka sameyn jiray xilliyada isaan oo kale jira iyo hay'adaha gargaarka bixiyo waxna soo gaaray ama maaragtay hadda antaan dadaal oo ka jira deegaankana ma jiraan walaal deegaanka arjala deegaan ballaaran waay lama kala goobi karo misaada bunquus camala deegaanada deegaanka walaal marka dad la soo tiro goobi kara ma ahan oo maaragtay hadda waa soo xafaya maaragtay dhowr kun oo qoys degan oonka saa'id oo ka jiro maahan oo keliya waxaa ka cabanayay biila'aanta dadka ku dhaqan xaafadaha fofog ee magaalada beledweyne balse waxaa jira cabasho xoog leh ee ay qabaan beeralayda iyagoo ay soo food saartay biyaraan oo ay ku adkaatay waraabkii beeraha maadaama ay hoos u dhaceen biyaha webiga shabeelle oo dhadhankoodii iyo muuqaalkuba xilligan isbedelay taa oo keentay inay yidhaahdaan nacfiga biyaha webiga shabeelle sida uu KN u sheegay mid ka mid ah beeralayda ku dhaqan magaalada beledweyne hadda dalagii mar hore aan helayni ma leh biyaraan aawed hadda waa uu iska dhex joognaa moogiye dalag ma leh macnaha saas waxaa keentay biyihii aa yaraaday biyihii waxay noqdeen cusbo haddaa lagu waxee kor ma soo kacayn biyaha say u leen ama roob la'aanta u dhacday dalagii hoos u socday aad baa maaragtay laga dareemaya daawo haddaa lagu shubaatay hanne waa biyaha cusbo noqday. Ismaan Aadan Carays idaacadda kulmiye beledweyne. warka subaxee radio kulmiye ayaad dhageysanaysaan waxaa inoo soo socda wararka dibadda. duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr Jabuuti u doono. booliiska Suudaan ayaa waxa ay rasaas ku fureen dad baroor diiq isugu soo baxay. booliiska Suudaan ayaa rasaas nool u adeegsaday dad ku hor baroor diiqayay guri u deganaanin ciidanka booliisku ay dileen isaga oo banaanbax ka qayb qaadanayay. ku dhawaad 2,000 oo baroor diiqayaal ayaa lagu soo warramayaa in ay isugu yimaadeen gurigii uu deganaa Mowa Bashiir Khalid oo 60 sano jira isla markaana ciidanka booliisku ay toogteen Khamiistii la soo dhaafay. dalka Suudaan waxaa toddobaadadii la soo dhaafay ragaadiyay mudaharaadyo dowladda looga soo horjeedo kuwaas oo yimid kadib markii maciishada dalku ay qaaliyowday. dadka ayaa Umar Xasan al-Bashiir waxa ay ugu baaqayaan inuu xilka ka dego madaxweynuhu waxa uu wadanka maamulayay 30 sano ee la soo dhaafay. ugu dambeyntiina madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu diiday warbixin lagu sheegay in uu amray qareenkiisii hore Mitchell Cohen in uu been u sheego Kongareeska. warbaahinta magaceeda Buffett la yiraahdo ayaa waxa ay sheegtay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Cohen faray in uu been ka sheego qorshihii uu magaalada Moscow uga dhisayay dhismaha Trump Tower magaciisa la yiraahdo. Cohen ayaa bishii la soo dhaafay waxa loo xukumay kiiskaasi ku aadan in uu Kongareeska been u sheegay. madaxweyne Donald Trump waa uu iska fogeeyay in uu si naba qareenka iyo asagu ugu heshiiyeen in Kongareeska been loo sheego. warkii subax oo aad ka dhageysanayseen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho intaas ayuu ku dhan yahay cidii warka iyagu dhaafay radio kulmiye.net ayay ka heli kartaa dhageystayaasha jooga magaalada Gaalkacyo radio hayaan ay naga dhageysanayaan magaalada Beledweyne radio wadani cadaado radio cadaado Mareykankana Somali American Radio nabadgeliyo.